bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa maalin axad ah 8 bisha sebtembar sanadka 2024 barnaamijkan qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid nin hubaysan oo kasoo tallaabay xadka Jordan iyo daanta galbeed ayaa Israa'iiliyiin ku dilay daanta galbeed faahfaahin iyo macluumaad dheeraad oo ku saabsan ninka weerarkan fuliyay sida uu kusoo gaaray halkaas iyo waxa goobta ka dhacay waa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan Xamaasna waxay sheegtay in dhawaan Israa'iil ay arki doonto waxyaabo mucjiso leh oo ka dhacaya daanta galbeed waa maxay waxa ay qorsheynaysaa Xamaas barnaamijka ayaad ka heli doontaan saraakiil ka tirsan Israa'iilna waxay doonayaan in iscasilaan sabab la xiriira xaaladda daanta galbeed Hezbollah in ka badan 100 gantaal ay ku weerartay Israa'iil faahfaahin idin kaga haynaa Xuutiyiintuna waxay soo rideen diyaarad casri oo Mareykanku u lahaa Ruushkuna wuxuu sii wadaa weerarada uu ka geysanayay Ukraine waxay u hanjabtay Iran qodobadaas iyo wararka ugu dooran caalamka ayaad maqli doontaan mar kale soo dhawaada aan ku horeeyay dhacdo dhif iyo naadir ah maanta ka dhacday xadka u dhaxeeya daanta galbeed iyo dalka Jordan kadib markii nin hubaysan oo ka soo gudbay dhinaca Jordan uu u soo talaabay dhinaca daanta galbeed isagoo ku beegsaday isgoyska loo yaqaan LMP ama buundada boqor Xuseen Israa'iiliin halka ku sugnayd halkaas oo bar control ay ku leeyihiin ciidanka Israa'iil inta uu weerarka socday uu Iran 3 Israa'iiliyiin ayaa la dilay iyadoo booliiska Israa'iil ay markii dambe ku dhawaaqeen inay dileen ninka geystay falkan balse dhacdadan ayaa ugub ku ah iyadoo markii uu horeysan noqonayso qof ka soo tallaabay xuduudda dhulka ay Israa'iil Falastiiniinta ku go'doomisay dalalka ku yaala uu weerar ka geysto gudaha goobaha ay ku sugan yihiin Israa'iiliyiinta arrintan ayaa markiiba noqotay dhacdo qabsatay warbaahinta iyo sida weerarkan uu ifafaalo xun ugu bixinayo dhinaca Israa'iil sabab la xiriira inay suuragal tahay inay kordhaan weerarada ay geysanayaan dadka soo gudbay xadka sabab la xiriira xasuuqa xadgudubka iyo xaaladan xariis darada ee Israa'iil ay kula kacayso Falastiiniyiinta haddaba haddaan faahfaahin idin ka siiyo dhacdadan sida u dhacday waxa la sheegay nin watay gaari xamuul ah oo ka soo gudbay dhinaca Jordan ama ka yimid dalka Jordan oo sidoo kale loo yaqaan dalka Urdun inuu ka soo tallaabay buundada boqor Xuseen markuu soo tallaabay wuxuu gudaha u soo galay dhinaca daanta galbeed gaar ahaan isgoyska la yiraahdo LMB waa isgoys ku yaala daanta galbeed oo Israa'iil ay maamusho halkaasna waxa ku badan Israa'iiliyiinta waxa la sheegay inuu ahaa darawal waday gaari xamuul ah oo ka yimid dhinaca Jordan markii ay ciidamadu ku istaajiyeen barta control ayaa waxa la sheegay inuu la soo baxay qori isla markaana uu rasaas ku furay dadkii goobta joogay ugu yaraan 3 Israa'iiliyiin ayaa la sheegay inay geeriyoodeen Israa'iil waxay ku sheegtay dad rayid inay ahaayeen dadkaas balse warbaahinta qaar ayaa ku warramay in sidoo kale ciidamo Israa'iil ah ay qasaara ka soo gaadhay weerarkan oo noqonaya midkii ugu horeeyay noociisa ah oo uu geysanayo qof aan Falastiini ahayn oo ka soo tallaabay xadka dal kale gudahana u soo galay goobaha Israa'iiliyiinta ay ku sugan yihiin ayaa noqonaya kii qasaaraha ugu badan dhaliyay walow ciidanka Israa'iil ay sheegeen in la toogtay ninkan ayaa haddana waxay markiiba dhacdadan isku rogtay mid weyn oo aad loo hadalhayo wargeyska iyo cudurada Ahronad ayaa wuxuu sheegay in ciidanka Israa'iil ay aagaas ka wadaan hawlgallo ay ku baadigoobayaan haddii dagaalyahano kale ee goobta ku sugan yihiin waxaa labada dhinaca Jordan ee ka xirtay buundada boqor Xuseen ee isku xirta Jordan iyo daanta galbeed ee la haysto gaar ahaan isgoyska ciidanka Israa'iil ay maamulaan ee ku yaala aagaas oo loo yaqaano isgoyska LMB dhinaca Jordan sidoo kale wararka ka imaanaya waxa saraakiisha maamul ee ku sugan aaga xadka la leh daanta galbeed ee Jordan ay ugu baaqeen Israa'iil inay dhowrto madaxbannaanida Jordan sabab la xiriira in uu jiro walaac laga qabo in Israa'iil isku dayi karto inay u tallaabto dhinaca dhulka Jordan iyadoo baarayso dagaalyahano kale sida ku warantay Al Jazeera Jordan ayaa sidoo kale waxay furtay baaritaan la xiriira dhacdadan waxana warkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jordan lagu sheegay in mas'uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan toogashada ahayd ee ka dhacday dhanka kale ee buundada boqor Xuseen ee gudaha daanta galbeed wararka ka soo kordhay dhacdadan barnaamijyadana kala hay'adu ee idmaad ku maqli doontaan sidoo kalena waxa dhacdooyinka isla saacada dhacayaan aad kala socon karnaa barahiga Facebook iyo Telegram oo ku heli kartid Iimaan Jaamac isla wararka daanta galbeed ayaan ku jirnaa hogaamiyaha sare oo ka tirsan dhaqaaqa Islaamiga ee Xamaas Osama Hamdan ayaa maanta wuxuu ka dhawaaqay in maalmaha soo socda ay ku soo bandhigi doonaan waxyaabo la yaab leh dhinaca daanta galbeed ee Israa'iil haysato isla markaana ay arki doonaan Israa'iiliyiinta naxash badan hogaamiyahan sare oo ka tirsan dhaqaaqa Xamaas ayaa sidoo kale sheegay in waanta xabad joojinta ee Mareykanka Gaza aysan u baahnayn hindisayaal cusub oo la soo bandhigo sababta wuxuu sheegay in dhammaan hindisayaashii hore ay fashilmeen sabab la xiriira inaysan jirin damaanad ah in Israa'iil ay aqbali doonto isagoo markale ku celiyay waraysi uu siinayay Al Jazeera in aysan Xamaas u fadhiisan doonin soo jeedin cusub oo la soo saaro taas oo uu ku sheegay inaysan waxba ka doonaan karin soo jeedinadii hore ee Israa'iil ay burburisay hogaamiyahan sare ayaa sidoo kale waxa uu beeniyay in wax wada xaajo toos ah ay la bilaabeen Mareykanka kaas oo ka madax bannaan dhinaca Israa'iil kadib markii warbaahintu ay ku warantay inuu jiro isku day Mareykanku u diyaarinayo oo la xiriira inay doonayaan inay wada hadal gaar ah la galaan Xamaas si ay u soo siidayaan maxaabiista Mareykanka balse Hamdan oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee Xamaas ayaa sheegay in ilaa hadda aysan jirin wax
dhinaca Maraykanka wadxaajooda oo ay la fureen ama uga yimid. Wuxuuna intaa ku daray inuusan jirin xiriir toos ah oo weli dhex maray iyaga iyo Maraykanka. Daanta galbeed wararka la xiriira Falastiiniyiinta intaana ka bixinna wargeyska iyo ciidadood Ahronoth oo Israel ka soo baxa ayaa waxa uu sheegay iyadoo Al Jazeera xiganayso in hoggaanka ciidamada Israel ay ku eedeeyeen ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wasiiradiisa inay ka dhuumanayaan oo aysan qaadanayn go'aano looga hortagayo xiisadda ka taagan daanta galbeed. Tiro badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Israel ayaa ku fikraya inay shaqada isaga tagaan sabab la xiriira xiisadda kordhaysay daanta galbeed. Daanta galbeed ayaa hadda loo arkaa kale oo khatar ku ah xaaladda dagaal ee ka soo bilaabatay Gaza. sabab la xiriira in dagaalka daanta galbeed uu noqon karo dagaal caalami ah gaari karana meelo ka baxsan dhulka Falastiiniyiinta. iyadoo mar horeba ifafaalooyinkaas la arkay oo weerarka u horreeyay oo uu fuliyay qof ka yimid meel ka baxsan dhulka Falastiiniyiinta inuu ku dilay Israa'iiliyiin. Hoggaanka mucaaradka iyo saraakiisha sare ee ciidanka Israa'iil ayaana ka digay in xaaladda hadda daanta galbeed ka taagan ay tahay mid halis gelinaysa xasiloonida Israa'iil, iyagoona sheegay in halkaasi dagaalka ka socdo isku bedeli karo mid weyn oo qarxa oo saameyn weyn ku yeesha isla markaana isbedel ku rida xaaladda halkaa ka jirta. wararka daanta galbeed hadda aad loogu hayana barnaamijyadeena ayaad ku maqli doontaan hadduu eebba idmo. markaana dhinaca waqooyi dhulka Israa'iil haysato ee xadka Laala ee Lubnaan 24 saac la soo dhaafay in ka badan 100 gantaal ayay Xisbullah waxay ku garaacday waqooyiga dhulka Israa'iil haysato xadka Laala ee Lubnaan, iyadoo in ka badan 50 gantaal la sheegay inay si sax ah ugu dhaceen bartilmaameedooda. ugu yaraan 3 deegaan oo halka ku yaala ayaa waxa la sheegay in burbur uu gaaray, iyadoo dhinaca Xisbullah ay sheegeen khasaare dhimasho iyo dhaawacba iyo burbur laba inay gaarsiiyeen dhulka Israa'iil haysato ay ku jiraan saldhigyo ku yaala dhinaca waqooyi ee xadka Laala ee Lubnaan. tan iyo dabaaqadii bishii Agoosto Xisbullah ayaa sare u qaaday weerarada ay ka geysanayso dhinaca waqooyi ee ku beegsanayso saldhigyada iyo deegaanada Israa'iil ay haysatay waqooyiga dhulka xadka Laala ee Lubnaan. Yaman afhayeenka kooxda Xuutiyiinta ayaa waxa muuqaal uu sii daayay uu ku sheegay in Xuutiyiintu ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee aan duuliyaha lahayn ee Maraykanku leeyahay ee loogu yeero MQ-9 Reaper, taasoo uu sheegay in gantaaladooda ay u suuro gashay inay soo ridaan. diyaaradan ayaa oo nooceeda la soo riday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza oo ay soo ridaan Xuutiyiinta. halkii xabo oo ka mid ah diyaaradan ayaana joogta $30 milyan. ka hor howlgalka badda cas uu Maraykanka iyo Ingiriiska iska kaashanayaan ka socda, diyaaradan waxaa loogu yeeriyay mid ka mid ah diyaaradaha ugu halista badan uguna casirsan teknolojiyad sarana leh ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taasoo ka dhigtay diyaarad qiimo sare jooga. balse Xuutiyiinta oo dhaqdhaqaaqi taageerto Iran ayaa u suuro gashay in tan iyo November ay soo ridaan ilaa 8 diyaaradood oo mid kastoo ka mid ah ay joogto $30 milyan. mar horena waxaa ka yimid gudaha Maraykanka dhawaaq la xiriira in Maraykanka iyo xulafadiisa kale oo Ingiriiska ugu horeeyo inay ku fashilmeen in ay wax ka qabtaan xaaladda badda cas. dagaal ay ku guuldareysteen ayaana mar hore lagu sheegay inuu yahay halkaa waxaa ka socda, iyadoo xilligan markabsiday in ka badan 100 milyan oo fuusto oo saliid cayriina oo ku gubanayo badda cas, gaar ahaan biyaha caalamiga ee badda cas. markabkaas oo ka mid ah ilaa iyo 3 markab oo u suuro gashay inay shaqada ka saaraan Xuutiyiinta. sidoo kale in ka badan 1 bilyan oo ganacsi oo isku socda mari jiray badda cas ay Xuutiyiintu xanimeen, sabab la xiriira in ay sheegeen in howlgalkooda xanibaadda iyo xiritaankooda badda cas ay la xiriirto talaabo ay ku cadaadinayaan Israa'iil si loo joojiyo dagaalka Gaza. waxaana saraakiisha sare ee Xuutiyiinta oo ka mid yahay hogaamiyaha sare Cabdimalik al-Xuuti uu hore u sheegay si loo joojiyo isla markaana dib loogu soo celiyo dhaqaaqii badda cas in loo baahan yahay in la joojiyo dunida iskugu tagto joojinta Israa'iil iyo xasuuqa ay ka geysanayso Gaza iyo in ciidanka Israa'iil halka laga saaro. barnaamijka doornimo ee weli la socotaane Ruushka ayaa sii wada duqeymaha iyo weerarada uu ka geysanaya dhulka Ukraine. ilaa 5 magaalo oo ka tirsan bariga iyo koonfur bari dhulka Ukraine ayuu Ruushku tan iyo saaka weeraro duqeymaha ka geystay. duqeymadaas ayaa la sheegay in Ruushku ku beegsaday goobo saldhigyo ay aaga kale oo adeegayay ciidanka Ukraine, oo dhinaca Ukraine ay sheegayso in duqeymahaasi khasaare ka soo gaadhay dad rayida. Ruushka ayaa sare u qaaday 2 toddobaad u dambeysay duqeymaha uu ka geysanayo Ukraine, iyadoo toddobaad ka hor ahayd weerarkii ugu weynaa inuu Ruushku ku qaaday dhulka Ukraine, kaasoo in ka badan 100 qof ay ku geeriyoodeen muddadii uu socday. waxaa kaloo xigtay inuu Ruushku duqeeyay kol ay lahaayeen ciidanka militariga, halkaasoo Ruushku uu sheegay inuu ku beegsaday saraakiil ajaanib oo uu tilmaamay in ay tababaro la xiriira dagaalka elektrooniga iyo diyaaradahan duuliyaha lahaynba khibrad la xiriirta bixinayay in halka lagu dilay. dagaalka Ukraine iyo Ruushkana waxaa hadda loo arkaa khatar weyn oo halis ku ah xasiloonida dunida, iyadoo shalay qoraal wadajir ay soo saareen madaxa hay'adda sirdoonka Maraykanka CIA iyo dhigiisa Ingiriiska MI6 ay sheegeen in marxaladda hadda dunida ku jiro loo arko midii ugu sareysay kadib dagaalkii qaboobaa ee adduunka.
ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca Ukraine ayaa ku dhawaaqday haddii gantaalada plastiga ee Iran la sheegay inay ku wareejisay Ruushka ay khasaare rayid ah ka geystaan gudaha Ukraine inay Iran la kulmi doonto jawaab adag oo ka imaanaysa dhinaca Ukraine. Hanjabaadan ayaa ka dambeysay markii shalay saraakiisha Mareykanka ee Yurub ay sheegeen in ay dhowr boqol oo gantaalada ridada dheer ee 360 oo ay soo saarto Iran la geeyay dhulka Ruushka si ay u qayb uga noqdaan dagaalka Ukraine. Dabeeqadii bishii Agoosto ayay ahayd markii wakaaladda wararka ee Reuters ay markii u horeysay sheegtay in tobanaan ka tirsan militariga Ruushka lagu tababarayo gudaha dalka Iran si ay u awoodaan inay ku dagaalamaan isla markaana u adeegsadaan gantaalada ridada dheer ee Fatih 360 oo ka mid ah gantaalada ugu casrisan ee soo saarto Iran. Manahan hubkan kii ugu horeeyay oo ka qayb qaadanaya dagaalka Ukraine oo Ruushku adeegsanayo dhinaca Iran uga imaanaya. Hore diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Iran ayaa qayb ugu ahaa weerarada uu Ruushku ka geysanaya dhulka Ukraine. Ruushka iyo Iran ayaa hadda xoojiyay iskaashigooda iyadoo dhowaan inta ay taagneed xiisadii u dhaxaysay Iran iyo Israel oo weli halkeedii joogta uu Ruushku awooday inuu gaarsiiyo Iran nidaamkiisa difaaca iyo teknolojiyad kale oo la sheegay inay ku jiraan raadaar casri ah oo la soconaya dhaqdhaqaaqa, taas oo keentay in Iran ku faanto in ciidankeedu hadda awood u leeyihiin in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa hawada dhammaan dhulka Iran ayna ka hortagi karaan isku day kasta weerar oo ugu yimaada cadowga. Barnaamijkeena duhurnimo intaas inoogu eeg hadduu eebidmo intaynu barnaamijkeena habeenimo ku kulmi doono. wararka iyo warbixinada waxaa kala socon kardhaan barahayga Facebook iyo Telegram. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaane Allah.